madaxweynaha dowladda Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa dhagax dhigay garoon diyaaradeed oo laga hirgelinayo degmada Matabaan. Bushra Bashiir ayaa idin faahfaahinaysa. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen ayaa dhagax dhigay garoon diyaaradeed oo laga hirgelin doono degmada Matabaan. madaxweynaha ayaa sheegay in dhismaha garoonka uu muhiim u yahay isu socodka bulshada deegaankana uu horumar muuqda ku soo kordhin doono. madaxweynaha ayaa ugu baaqay dhammaan ganacsatada, hay'adaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in loo istaago dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada Matabaan. waxaa farxad noo maanta inaan dhagax dhigno garoonkii degmada Matabaan. runtii waa degmo bulsho dad aad u badan ay ku nool yihiin, waa bulsho abaabulan. runtii meeshaan maanta dhagax dhigaynana waxaa ka muuqdo waxqabad bilow fiican jooga ka muuqdo. runtii waa ku amaanayaa ganacsatada iyo bulshada qaybahooda kala duwan iyo maamulka degmada isu xil saaray inay hesho degmada Matabaan airport wax uga soo degaan inay hesho. runtii waa ku amaanayaa, waxaan leeyahay bulshada waa dadaashay, waad mahadsantihiin, maamulkana waa uga mahadcelinayaa. faa'iidada uu leeyahay runtii lama soo koobi karo. maanta wax walba waxay u baahdaan inay kala soo degaan degmada Matabaan dhexdeeda airportkeeda. runtii wax lagu faana waayay horumarka hadday tahay caafimaadkii iyo hadday tahay guud ahaan dhinac waliba ee bulsho ku hormarto waxay ka mid tahay kaabayaashii wax ugu horreeyay ka mid tahay oo ka mid yahay airportku. runtii dadaalka dadaasheen iyo waxqabadka muuqda ka muuqda halkaan ee bilow fiican waay aan dhihi karnana cid waliba gacan ka geysata waxaan leenahay Ilaahay ka abaal mariyo. ballantaynuna waxay tahay airportkan maanta waa dhagax dhigne xiriir jarkiisa inaan ku kulanno waqti aan dheerayn haddii Ilaahay raalli ka noqdo. guud ahaan bulshada Hirshabelle gaar ahaanna reer Matabaan waxaan ugu baaqayaa cid kasta waxay halkaan gashato waa sadaqa jaariyaah, qof waliba waxay awoodo ha gashato. anaguna insha Allah haddii Ilaahay raalli ka noqdo waxa aan hayno iyo cid aan u cila dhaami karno iyo cid aan gacan naga si aan dhihi karno ballantaynu waxay tahay oo naga go'an airportka degmada Matabaan oo shaqeynaayo muddo dhow haddii Ilaahay raalli ka noqdo. aad iyo aad u mahadsantihiin.